ogeysiis ama warbixin ku saabsan fursad qaali ah oo deeq waxbarasho oo iska kaashanayaan shirkadda Aposto Group iyo shirkadda Orange Worldwide oo ka dhisan Geeska Africa oo kaashanaya labada shirkadood oo kaashanaya jaamacadda Ked University waddanka Hindiya inay labada shirkadood soo heleen scholarship aad u baaxad ballaaran fursad qaaliyan oo ah dhalinyarta iyo bahda waxbarashada jecel ee ku nool Geeska Africa. waa maxay fursadani labada shirkadood iska kaashadeen iyo jaamacadda Ked University? fursadani waa fursad ugu baaxad ballaaran caalamka dawladda Hindiya ay bixiso. waxaa maalgelinaya fursadan qodobka labaad ah wasaaradda waxbarashada waddanka Hindiya. arday walba waxa uu helayaa chiefkii cunadii caafimaadkii iyo free laptop oo jaamacadda Ked University ay u raacinayso. isla markaasina waxa ay wasaaradda waxbarashada shaacisay in ka badan 100 jaamacadood ay uga qayb galayaan soo xulashada ama qabashada ardada internationalka ah ee waddanka Hindiya iman doonta. sidoo kale waxay wasaaradda waxbarashada Hindiya sheegtay ilaa 2600 oo koorsi oo ay kala dooran doonaan dadka u sharaxan inay helaan fursadaas qaaliga ah. sidoo kale baaxadda intaas la eg ayuu leeyahay markaan ka hadalno fursadda waxbarashada deeqda waxbarashada iska kaashadaan shirkadda Aposto iyo Orange. yaa ka faa'iideysan kara haddaba fursadda waxaa ka faa'iideysan kara arday kasta oo ah fasalka 12aad sanadkan ama form 4 ku jira sugayana imtixaamaadkii centralized-ka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadaysay ama guud ahaan imtixaamaadka 12aadka la yiraahdo ama fasalka 4aad ee dugsiga sare. sidoo kale waxaa ka faa'iideysan kara ardada haysata shahaadada 12aadka ah oo hore u qaadatay ama form 4ka. sidoo kale waxaa ka faa'iideysan kara ardada heerka koowaad ee jaamacadda haysta ee doonaya inay master dhigtaan. yaa soo xulaya haddaba ardada seebaa lagu soo xulayaa maxaase lagu soo xulayaa? arday kasta oo guud ahaan iska diiwaan geliya programka SSI ama wasaaradda waxbarashada Hindiya ay bixinayso scholarship-ka ah waxaa looga baahan yahay kaliya inuu haysto dhibco aad u sareeya, inuu ka yaryahay 24 sano. dhibcihiisa ayaa qofka lagu soo xulaya. waxaana soo xulaya teamka SSI iyo institutionka ama markaas macadka ay kaashanayaan oo qofkaas iska diiwaan geliyo ka Aposto iyo Orange ahaan. waxaanu xiriir iyo iskaashi iyo wada shaqayn naga dhaxaysa jaamacadda Ked University oo ah jaamacadaha ugu horeeya ee dawladda Hindiya ama wasaaradda waxbarashada Hindiya ay u xilsaartay inay qabato ardada ajaanibta ah ee ka imaanaysa waddanka dibadiisa. jaamacadda Ked University haddii aan ku dheeraado waa jaamacadaha ugu baaxadda iyo saameynta badan waddanka Hindiya. waa jaamacad haysata waxa la yiraahdo Atal Ranking Institute of Innovation of achievement ayay waxa haystaa kaalinta koowaad. sidoo kale darajada A ayay kaga jirtaa jaamacadaha waddanka Hindiya oo ka dhisan Hindiya. sidoo kale waxa haystaa aqoonsiyo badan oo wadamada caalamka ah. waxay haysataa waxa la yiraahdo aqoonsiga NAAC ee darajada A ayay haysataa. waxay haystaa Washington Accord ayay iyadana trial 1 ka haysataa. waxay kaloo haysataa aqoonsiga loo yaqaano IET oo ah Institute Engineering Technology oo ah jaamacad waxyaabaha ugu badan oo ay bixinayso. jaamacaddu sidoo kale waxay leedahay ilaa 25 iskuul ayay maaragtay fursadan bixinaysaa. sidoo kale jaamacaddu waxay haysataa waxa la yiraahdo ama xiriir ay la leedahay jaamacadaha caalamka ka dhisan sida International Association of Universities ayay waxay ka tahay member wayna aqoonsan yihiin. sidoo kale waxay aqoonsan yihiin International Association of University Presidents ayay maaragtay ayadana member ka tahay oo loo yaqaano AAUB. sidoo kale waxay ayadana member ka tahay waxa la yiraahdo University Mobility of Asia and Pacific UMAP ayay maaragtay waxay ka tahay waxa la yiraahdo member. jaamacaddu waa jaamacad aad u sumcad badan marka la eego Asia iyo Hindiya oo dhan. marka jaamacadaas oo kaashanaysa shirkadaha Aposto iyo Orange Geeska Africa ayay waxay bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan u soo bandhigaysaa fursad waxbarasho oo aad u qiimo badan oo iskugu jirta waxa la yiraahdo scholarship, chiefkii cunadii iyo caafimaadkii. sidoo kale ardayga waxa uu helayaa maadooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin engineering, ay ka mid tahay caafimaadka, ay ka mid tahay arts ama humanitarianska waxyaabaha la midka ah oo dhammaystiran. qofkii doonaya ama ardayga doonaya inuu ka faa'iideysto awoodna u leh inuu helo ama uu doonayo waxbarashada dalka dibadiisa wuxuu toos ula soo xiriiri karaa xafiisyada ay ku kala leeyihiin shirkadaha Aposto iyo Orange waddanka Soomaaliya ama Geeska Africa.